tallaabadaan qaadayna soo socoto horta kuwa halkaa maxbuuska noogu ah dadkii lahaa maydkoogaan siinayna noloshooda siin mayno haddii lama dhex mari karaan waxa ninka 150 iyo 200 kiilo soo dhex maray arka sharaf ku soo maray waxa sameynaya annaku haddii halkaa bay kuwa inoogu xidhanayaan hadday kuwa kala soo socdaanna wadada aad soo marayaan annaku dadkii uu diyaar baan ka dhignay iyo kaana dhiigga ay dhibaatada la yimid annaku kaga wanaagsanaa wadada ka soo baxaysa Djibouti halkaa hantidu maraysana maanta wixii laga dambeeya way xidhan tahay qaraar cad meel kasta dad baan dhignay ciidan baan dhignay qoriyeega annakoo ku fiideysana maanta waxaa lagu kalifay inay gacanta ka baxday nabadgelyada noo dhaxaysay annakuna amar baan qaadanay maanta laga bilaabo waxaa ku dhawaaqnay beesha ciise si degdeg ah inuu soo xirooto ay hubkayga u qaadato ay maaragtay ciideedii iyo dalkayga iyo xafladeedayga u difaacato colaad baad chief caaqil ma colaad baad ku baaqaysaa hor leh ma waxaad u chief caaqil ma waxaad u jeedaa waxaan xidhnay jidkii ama xadkii xidhiidhinayay Somaliland iyo Djibouti wadadan maanta waxaa ka dhashay inta ogaalkayga hal qof oo dhaawaca oo maaragtay dhalinyarta boordiga iskoolka Seylac dhigata ayaa ka dhashay iyo maaragtay waxa lagu karlaayay galabta u dambayso waxa la yidhi dadka hal saara la isku raacay amar cad baa soo baxay leele basaaray halka ilaa u xeerka bisha 12 damaanay halka kama baxayaan yaa oranaya markaa amarka ninkii madanka maanta si xukuumaya leh annagu aan u dhaqaano Maxamed Cali laakiin madaxweyne ku-xigeenka aad maaragtay isagu maanta ka oo beelihii kala fudnaynaya imika magaalada yaa gacanta ku haya ciidamada amniga mas'aacid kale Soomaaliland wala leeyahay laakiin deegaanada waa la kala leeyahay boorama hogaaskooda ku soo dhaweysteen cid baa ku cayday ciiso caayis cid aflagaadeynaysa ma jirto way ka iskale maxaa keenay inay yiraahdeen Seylac oo beesha ciise leedahay inay yiraahdeen laguma qaban karo oo la soo diro وهاجاك داود يال سيدينتينا بدن أذكر هيسن مانتها وحيس كودا وكدعي مجالدا سيلع قبل كسلل halkaasoo oo laba deegaan ama laba qolo ay isku dhaceen hadaba bal xaaladihii ugu dambeeyay ee isku dhacaasi Seylac ka dhacay sida xaalku hadda yahay waxyaabaha ka dhashay khasaare isku dhacaasi waxyaabaha sababay iyo waxa ku xigi kara ayaan doonayaa inaan faahfaahin dheeraad ah ka helno waxa hadda khadka si toos ah ugu jira Chief Caaqil Xasan Cige Coofle oo ah gudoomiyaha gudida sare ee beesha Ciise kana mid ah gandayaasha beeshaasi sidoo kalena ka mid ah gudida bandhiga buuga Ciise ee la filayo in dhawaan lagu soo bandhigo Seylac taasi oo sabab ah isku dhacyada iyo hadal haynta ka taagan Seylac Chief Caaqil marka hore waa ku soo dhaweynayaa waa baasantiin qadar aad baan soo dhaweynayaa TV-ga bal maanta Seylac waxa ka dhacay isku dhac bal isku dhacaasi maxaa sababay horta marka hore qadarow horta wad baasantiin aad baan iga mahad celinayaa sida aad waraysiga ila soo xiriirteen anoo Chief Caaqil Xasan waxa horta daraarahanba 4 cisho ilaa maaragtay 4 cisho waxa ka taagan Seylac rabshado maanta ma aha 4 cisho waxa Seylac rabshadaha keenay dhalinyar reer Boorama oo la soo abaabulay Seylac timiday rabshaday ka bilowday qalalaasay ka samaysay haddana waxa ku soo beeray aqalo ka yimiday Boorama iyo inta Gadabursigu dago beesha Gadabursiga dhalinyartaana waa beesha Gadabursi weeyaan yaa haddana yimiday waxay ka sameeyeen halka dadaag shicibkii deganaa iyo booq iyo iyay ka sameeyeen bay ahayd kolka isku dhaca saaka dhacay waxa uu sabab ahaa rabshadaha iyo dadka soo duulay abayaal maaragtay aqal iyo sulaadiin iyo dhalinyar bale taabay ka dhalatay isku dhaca maanta maxaa khasaare ka dhashay isku dhaca maanta inta ogaalka isku dhaca maanta waxa ka dhashay inta ogaalkayga hal qof oo dhaawaca oo maaragtay dhalinyarta boordiga iskoolka Seylac dhigata ayaa ka dhashay iyo maaragtay waxa kale waa dhaawacyo fudud oo aad u waaweyno maxaa wiilkaasi maxaa dhaawaca maxaa gaarsiiyay wiilkaas sheegayso soo dhaawac u gaaray hadda waa dhaawaciisu uu saleeyay hadda dhaawaciisu saleeyay labada dhinac ee rabshaduhu dhex mareen maxay isku adeegsanayeen maxaa markii ay iska hor yimaadeen labada dhinac waxay isku adeegsanayeen ay rabshaduhu ka dhacay waxa weeyeen waa dhagax tuur iyo maaragtay u isku adeegsanayeen waxa dhibaatada keenay
ciidanka maaragtay halkaa jooga oo dharaarahanba ilaalinayay dadka meesha yimiday oo yaka ilaaliya laga yidhi oo amar ku siiyey madaxweyne ku-xigeenka iyo dadka amar ku siiyey oo inta 4 cishay hore joogeenba ku dul ilaalinaya halkaa oo baran saabka iyo islaamaha ammaanka dhammaantood wuxuu ka yidhi dadka meesha ciisana ka ilaaliya iyakuna wax alla waxay doonaan bay samaynayaan lamana hadli kartiin lamana xili kartiin waxay doonaan bay iska soo samaynayaan way caytamayaan ciyaalka boordhigay leeyihiin waan baabinayna gubaynaa meesha ka saaraynaa waxay oo dhan nidaamihii ammaanka shaqo ku lahaa waxaa u diiday inay maaragtay laga qabto tallaabo oo ay ka qabtaan madaxweyne ku-xigeenka وهاجي عاقل عضيمة وما هين إذا عضيمة هذا أنا قوم هينو لكن محاين واحد هذا الكلام كتشري إن دان يرى يو وحجرد يو عاقل أبابلن أي مجالد بورما كي مادين وأي سيل عمادين محا صوبية سسوا أبابلي وواحد سواء أبابلي قلت لما كذا برشاهم بس سواء أبابلي وحوشا كمدا ما دام عاقل الذي سلاطينتي هي دليرتي بعي جوجان waxay leeyihiin muftaxiisa annaka ayna laga dhaxleeyaa aqaladii beeraha gudubsanaad ku hor ayay ka dhaxleeyeen xudunta khilaafku waa maxay khilaafku ay dadka ragga ay u soo baxeen ay ka hadlayaan waxa weeyeen beesha ciiso maaragtay soo saartay bisha 11 xafladda xeer ciise boga la ilaahay maaragtay soo ay asxisay in lagu qabto bisha 11 iyo 44 guban degta beesha ciise iyo la tashi ay gandaha maaragtay beesha ciise ogaaska la tashaday iyo buuga taariikhda adduunyada dhan bagaalaya islaamku soo saxeexay Soomaali iyo geeska Afrika magac iyo taariikh u leh maaragtay Soomaali ku faanayso in xafladda lagu qabto cid ka soo Soomaaliya joogtana ku casuunay ka soo qayb galaan ahayd dawladana aan ogeysiino wasiirka arrimaha gudaha u tagnaana ko aqlado aan wato ay bara saabka iyo wasiirka maaragtay ka soo jeeda beesha ciise aan ka nidinaa waqtiga uu dhacaya amaankiisa iyo nabadgelyadiisa ogaas soo galaya oo maaragtay xariira ka soo galaya iyo gandiisoo la socda iyo Soomaali iyo wixii beesha ciise meesha doonta joogto la imanayo iyakana aan siinay aan wasiirka arrimaha gudaha madaxweynahana u sheegnay marxaban isla qaadanay hawsha oo ogaalkeena dawladda siinay baa jirtay hawsha laga kacay waa hawsha leeyahay war meeshaadii xaafadaadii kuma qaban kartid buuga harcis halka weeye waxay sababtu tahay marka laga yimaado bandhiga buuga ma waxyaalo kale oo beel ahaan ay idin dheer baa jiro oo meesha ku qabsanaysaan oo dad yowga kalena ay diidan yihiin mise waa bandhiga buuga qura maya anaku wax bandhiga buuga lagu qabanayaa oo Djibouti lagu qabtay oo dirdaba lagu qabtay Soomaaliya ka soo walatay gashay hadda aynu joogno goor dambe oo maalinimo habeenkiina in foolkayna soo saaray bal waa sidee xaalkii magaaladu laay xaalka magaaladu askar baa kala dhex joogtay imika askartaana waxa weeyaan waxaan nidhi war dadka meesha ka yimid ka saara dhulkoogii hal la geeyo yaana na ku nidhi go'aan ku saarno iyo dhaqaaqa ku saarno ma hayno amarka ma haysanaa la yidhi oo ma anaku amarka ma hayno yaa laga sugayaa waxa weey amarka ayaa laga sugayaa amarka waxay ku leeyihiin laamiga ammaanka halkan joogno waxaan ka sugaynaa maaragtay dawladda dhexe dhaxana amarka waxay dhaaheen anaka waxa dadka soo qaada lama oran iyadoo hadday imanaysa ama amar soo siinayso anaku saacad waqti laga qaadanaysa meesha dadka joogay rabshada wadaaye ku soo gudbay yimid dhulkan ama laga qaadanaysa ayay leeyihiin laakiin amar ma hayno aan ku kacayno kaga saarno waagaag sida ka bay joogtaa anaku waxa weeyaan anakuna waa go'aan baan qaadano maanta waana adaacadana waa la hadalay walaalkayo adiguna adaacadaan la hadlaynaa kamida maxaa go'aankiinu yahay go'aanka iyaga u dambeeya waxa weeyaan anaku dawladda Soomaaliland madaxweynaha waan isku nimidnay wixii aan hawl leenahay iyo wixii jira oo dhibaato ka jira beesha ay tabanayso waan u jibnahay waan isla afgaranay waan isla qaadanay ugu dambeyn wasiirka arrimaha gudaha hawlaha qabsanayna waan isla sheekaysanay nabadgelyadeedii soo dhacayo hawsha meel fiican bay noo socotay imika waxaan aragnay gacanteena ku qaatay sharciga gacanta ku qaatay madaxweyne ku-xigeenku sida aan hawsha ku hayno cid kastoo laamaha ammaanka la hadalay leedahay madaxweyne ku-xigeenka amarka annagana siiyay gaarsiisan tahay waxa weeyaan annaguna amar baan qaadanay maanta laga bilaabo waxaan ku dhawaaqnay beesha ciise si degdeg ah inuu soo xirato ay hubkayga u qaadato ay maaragtay ciideeda iyo dalkayga iyo xafladeeda u difaacato colaad baad jiif caaqil ma colaad baad ku baaqaysaa hor leh
kuma baaqayo qadar waxaan leeyahay annaku nabad baan jecel lahay dad nabad jecel baan nahay dad dhibtiska 34 sano tanaa oo Soomaaliya ka qatan baan nahay haddana nabad baan jecel lahay dad ummadaha kale ku dhex nool jecel baan nahay oo nabad iyo wanaag lagu dhex maro beel dhaqan loo xeer loo kala dambeyn laanahay laakiin kolkiina nagu kalifay wixii dooni laga sameeyay deegaankaaga Soomaaliland waa la leeyahay laakiin deegaanada waa la kala leeyahay boorama hogaaskooda ku soo dhaweysteen cid baa ku cayday ciiso caayis cid aflagaadanaysa ma jirto waya ka iskale maxaa keenay inay yiraahdeen sayla oo beesha ciise leedahay inay yiraahdeen laguma qaban karo oo la soo diro oo madaxweyne ku-xigeenkii maanta wadankii madaxweynaha ka intuu amar soo bixiyo war dadka ka soo saaro beeshiisi waliba yihiin oo ninka dile ka yimid iyo ninka baki ka yimid ninka boorama ka yimid oo maanta halka waxa samaynayo waxaan u aragnay in gacanta lagu qaato sharcigii waagaag caaqil halka imika baaqa ka diraya ugu dambeynta aan leenahay jiif caaqil baaqa waan kuu dambaysiin doonaa adoo iga raaliyaayeen jiif caaqil bal sidaad xustay dee mudday soo jiitamaysay saansaanta isku dhacan maanta dhacay oo saad sheegtay toddobaadkanba waa soo jiitamaysay inta ay soo jiitamaysay laamaha amniga ee gobolka leh ee xukuumadda dhexe leh ma la socodsiisan maxaase falcelin aad kala kulanteen markay hawshaan anaku aragnay habeenka ciyaalku ay soo galeen ay soo socdeen rafada sameeyeen gobolku wuxuu ku toojiyay madaxdalay iyo Aash Cabde laba intii xeebta soo martay Aash Cabde lagu joojiyay intii xariira soo martay madaxdalay baa lagu joojiyay dawladdu gobolka Amar buu qaato wuxuu dadka fitad wadaan halka baa lagu joojiyay waxa soo hadlay madaxweyne ku-xigeenka soo hadlay faraha laga qaado lama amaanka warasaabka maayirka saraakiisha dhukan wala joogtay ciidanadan haday booliis tahay iyo haday armay tahay ba xukuntana amar buu soo siiyay wuxuu yiri faraha ka qaada waliba caleemo qoyan ku soo dhaweeyay sayla waliba ma aragtay meel allo mooyay doon iska duuban waxay doonayaan ku hadlaan ba laga yiri oo amarka bay ku soo galeen oo la siiyay de maxaad ku cadeynaysaa inuu rabshadayo abaabulaya madaxweyne ku-xigeenka midulna armuu nabadda iyo isdhexgalka ka talinayay wadanka waxa ka jira madaxweyne ku-xigeenku waxaan ku cadeynaynaa wasaarad arrimo gudaha jirta waxa jira intaayo jaran baa jirta laamaha ammaanka oo dhan baa halkan jooga waxa jooga dadka meesha waxa rabshada sameynayana waa dad tiro yar haddii ay maaragtay laamaha ammaankana ummadda waxa u dhaxeeya nabadgelyada waxaan u dhiibanay oo u xil saaranay waa dawladda dhexe oo taagan oo barasaabkii u badanka matalaya faraha ka qaad laga leeyahay anigu dadka ay ma taaban kartaa la gaarisa fadhiyo odayada markay soo socdeen waxaan nidhi war odayada soo socda maanta cili dhalinyartii baa rabshada samaysay cili baan nidhi wuu la hadlay meel kaste waa la diiday waxa lagu karlaayay galabta u dambayso waxa la yidhi dadka hala saara la isku raacay amar cad baa soo baxay leele basaaraya halka ilaa u xeerka bisha 12 dhamaanay halka kama baxayaan yaa oranaya markaa amarka ninkii madanka maanta si xukuumaya leh anaku aan dhaqaana Maxamed Cali laakiin madaxweyne ku-xigeenka aad maaragtay isagu maanta ka oo beelihii kala fudnaynaya sharcigii iyo wuxuu dhaartay iyo wixii aan u dooranay maanta uu dhaxeeyo uu hayn maadaama madaxweyne maqan yahay laakiin anaku waxa imika magaalada yaa gacanta ku haya ciidamada amniga mas'aacid kale magaaladu waxa weeyeen way kala dhex joogaan labada qol laakiin qoladii khalad leh ee timiday fidnad waday in magaalada laga saaraan bal xidhay waagaag fariinta ugu dambaysa diraysa waa maxay jiif caaqil fariintaan u diray wadanku madaxweynaha la ku dooranay annagoo jabhad u baahnay oo waxaan arkayna inaan dulmanay Soomaaliya ninkii soo galay la fadhiisanay heshiisna la galay ee waxaan tabadeynana ka wada hadalay nabadgelyada dalkana waxa weeyaan aniga igu kaalay ee dalka loo doortay ee aabba ka ahaa waxaan u direynaa baq madaxweyne dalkii haddii aan afgabi lagaaga qabsan si degdeg ah annagu kaga wanaagsanaa wadada ka soo baxaysa Djibouti ee halka hantidu maraysana maanta wixii laga dambeeya way xidhan tahay qaraar cad meel kasta dad baan dhignay ciidan baan dhignay qoriyeega annagu ku fiideysana maanta waxaan lagu kalifay inay gacanta ka baxday nabadgelyada noo dhaxaysay madaxweynaha waxaan u direynaa baaqa wasiirka arrimaha gudaha oo nin sharafan oo walaalkayaga oo hawsha markaan qabanayna kala tabsanay oo warsi gelinay oo sagara waxa leenahay wasiir haddii inta laga inta roonadana waxa la yiraahdo waraano amarkii waa laga wareegay laakiin ammaanka adaa ku shaqale 24 saacadood gudahooda haddii dadka dhulka laga saari waayo
adigna loo xidhi waayay dadka dhibaatada geystay meel wala xoroto ay wixii aqila iyo wixii qori qaadi kara u kala soo qaataan nidhi iyo kale nagu kalifay halkaan fadhina hadday dawladdu noogu iman ee wixii dhacay naga raali gelin ee wixii dambigaa sameeyna noo xidhina meeshay doona ha joogsta ciise waxa weeye nin baxaniyiisu fulaya ma waxaad u jiif caaqil ma waxaad u jeedaa waxaan xidhnay jidkii ama xadkii xidhiidhinayay Somaliland iyo Djibouti wadadan kolkay low yacda ka timaadee sayla cadul maraysa ilaa aashacdo iyo halkay ka noqotay maaragtay xariirad ka galayso iyo halkay ka galaysa geerisa meel kasta waxa weeyaan waxa bari ka dambeeya way xidhnaanaysaa meel kastana imika anagu dadka yagii baa jooga go'aanka yaga iyo siidhiguna afufno bay sugaysaa waxaana lagu kalifay ma hayna dawladdii haddii xukuumaddu ilaa hadda haddii dawladdu ay ka jawaabi weydo baaqiina iyo hadalladiina maxay tahay tallaabadaad qaadaysaan saacadaha soo socda tallaabadaan qaadayna soo socto horta kuwa halkaa maxbuuska noogu ah dadkii lahaa meydkoogaan siinaynaa noloshooda siin mayno hadda nama dhex mari karaan waxaa ninka 150 iyo 200 kiilo ku soo dhex maray sharaf ku soo maray ee waxaa samaynaya annaku haddii halkaa bay kuwa inoogu xidhaanayaan hadday kuwa kale soo socdaanna wadada aad soo marayaan annaku dadkii uu diyaar baan ka dhignay iyo kaana dhiigga ay dhibaatada la yimid hadday meesha ay ummad iska degan oo masiibo doonayn oo nabad u fadhida oo gobolkeygii fadhida oo daacada oo dawladdii jecel oo la shaqaynaysa ninkii fidneeyey kiciyey waa maxamed cali aad baad u mahadsan tahay وهاجاك داود يالكاس وحا جيف عاقل حسن عقاع عوفلي oo ah gudoomiyaha gudida beesha ciise kana mid ah gandeyaasha beeshaasi kaasoo aan ka wareysanayay xaaladihii u dambeeyay ee saylac oo isku dhacmaanta ka dhacay iyo waxyaabaha sababay aad baad u mahadsantahay Chief Caaqil waan ku salaamay qadar waan ku salaamay